Horraantii 1985 ayuu taliskii nabad sugidda qaranku ii diray safar shaqo oo aad u qalafsanaa inaan ku aado Itoobiya si aan dad qiimo u lahaa taliskii xabashida ciidda ugu daro. Ma ahayn markii ugu horreysay ee la ii diro Itoobiya, dhowr jeer ayaan magac dulsaar ah ku tegay, laakiin markaan waa ka duwanaa oo saraakiil Soomaaliyeed oo dalka ka baxsaday ayaa xabashidii la soo saftay dagaalkii ay nagula jirtay. Haddaba si aan Addis Ababa u tago waa inaan marka hore tago Lagos, Nigeria, kadibna aan u dhoofo Hungary oo ah halka aan dhul xabashi ka aadi doono. 4M Hotel la yiraahdo oo ku yaala Budapest ayaan u heeday. Subaxii hore ayaa waxaa la igala soo hadlay soo dhaweynta, waxayna ii sheegtay adeegto joogtay soo dhaweynta inuu i doonayo nin la yiraahdo Ibnu Idlib. Shaki weyn ayaa i galay. Waxaan u diyaar garoobay inuu dhici karo fal dambiyeed la igu khaarijin karo. Xaashi yar ayaan ku qoray telefoonka taliyahayga xamar jira xafiiskiisa, waxaana saaray sariirta dusheeda si haddii la i khaarijiyo ay ciidanka nabadgelyada Hungary ugu yaraan ula xiriiraan xafiiskaas, kadibna warka geerideeda uu gaaro dhulkan u dhaartay inaan u dhinto. Intaanan hoos soo wada gaarin ayaan dabaqa labaad ku hakaday si aan aragti buuxda uga qaato qaybta hoose. Nasiib wanaag waxay indhahaygu durba soo qabteen Korneyl Cabdixamiid Xaraaq oo ka mid ahaa saraakiisha lafdhabarka u ahaa adeegga nabad sugidda Suuriya, sanad ka horna aan marti ugu ahaa xafiiskiisa ku yaala Dimashq. Salaan aanan magac la isugu yeerin kadib ayuu yiri, waa aniga Ibnu Daalib. Xabad sigaara intuu shitay anigana mid ayuu igu axsuumay. Waxaan u gartay inaan dibadda uga baxno hoteelka. Waxaan ku idhi aan qolka mar kaliya ku noqdo, bannaanka ayaan kugu sugayaa, ayuu ii raaciyay. Xaashidii aan ku qoray nambarka taliyaha ayaan soo jeexjeexay si ayna qolyaha nadaafadda u arkin oo aan u qabo badankood inay yihiin indho dawladeed, kadibna degdeg ayaan u soo degay. Waxaan tagnay safaaradda Suuriya, waxaan isku aragnay rag dhowr ah oo Shaam isku shaqo baranay. Waxaa durba la ii dhiibay liis ay dhowr nin oo ka mid ahaa laanta nabad sugidda Soomaaliya ku qoran yihiin. Raggaas waxay Suuriyaanku heleen warbixino lagu kalsoon yahay oo cadaynaya inay sirta qaranka Soomaaliyeed siiyaan Itoobiyaanka una marsiiyaan saraakiil ka tirsan ergada masaarida ee xamar jooga. Waxaan fadhigaas keligay gaaray go'aan inaan xamar dib ugu noqdo, iskana iloobo Itoobiya iyo dhoofkeeda. Waxaan galabkiiba aaday shirkadii aan la socday, waxaana codsaday in horay la iiga soo dhigo safarkaygii. $120 ayaa la iga qaaday. Maalin kadibna waan soo noqday. Socdeer kadib waxaan imid xamar. Madaxweyne Siyaad iyo taliyahaygii ayaan warbixintii u dhiibay. Waxaana u raaciyay jaalayaal, waxaan filayaa inuu dhintay wajigii aan ku tagi jiray Itoobiya. Si wanaagsan ayaa loo aqbalay, inkastoo ay labadooduba xoog u caroodeen, sigaarna iska daba shiteen. Maalmo kadib waxaa xabsiga loo diray saraakiishii laga soo warsheekeeyay, kuwaas oo la xaqiijiyay inay u shaqaynayeen Itoobiya. Bishii oo dhammaan ayuu madaxweyne Siyaad xaashi gaar ah ii dhiibay, waxaana u qaaday caasimadii Umawiyiinta Dimashq. Madaxweyne Xaafid al-Asad ayaan u siday mahadnaq ballaaran oo aan ka siday madaxweyne Siyaad. Bogaadin dheeraad ah ayaa loo diray saraakiisha ciidanka qalabka sida iyo kuwa aan muuqan. Suuriya oo aan ugu cusbayn, waxaan sida caadada u ah madaxda dunida Carabta ay la kulmaan saraakiisha ammaanka xilliyada fiidka ah ee aan sidaa looga agdhoobnayn haddii aysan jirin xaalad degdeg ah. Hotel Shaam oo la igu martigeliyay waxaa maqrib dibadii iigu yimid Haashim Bakhtiyaar oo ka mid ahaa saraakiisha xisbiga Al-Bacth. Wuxuu ii qaaday aqalka u deganaa madaxweyne Xaafid al-Asad oo aan ka fogeyn dhismaha safaaradda Soomaaliya. Wareer kadib Xaafid al-Asad wuxuu u soo jeediyay madaxweyne Siyaad talo ay habboon tahay inuu ku dhaqaaqo fulinteeda. Walaalkay waxaan jeclaan lahaa inuu ka fakaro xiriirka Liibiya iyo korneylka xukuma waa Qadaafi. Asad wuxuu ku qanacsanaa inaysan Liibiyaanku la waasheen saliidda, isla markaana aqoontooduna ay yar tahay. Ka xishoon maayaan inay dalal degan colaad ka horiyaan iyadoo aysan jirin faa'iido qarankooda uga imaanaysa. Asad wuxuu yiri, waxaan qabaa si loo joojiyo hantida ay ku shubayaan jeebabka jabhadaha hubeysan ee doonaya inay qaranka Soomaaliyeed dumiyaan, iyagoo kaashanaya cadow kasta oo ummaddu leedahay, inuu madaxweyne Siyaad soo celiyo xiriirka Liibiya si shartooda looga nabad galo. Warqad uu madaxweyne Asad ku suntan yahay ayaa la ii dhiibay.
jidka aan xamar u marayo oo jidda sacuudiga ah darteed waxaa jirtay cabsi inay sacuudiyaanka oo maraykanku dhabarka ka taabanayo baaraan boorsadayda diblomaasiga ah si aysan u dhicin waxa xaashidii lagu tolay buug markaan xamar tago aan jeexi doono. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa qaybtan. subscribe-da gambaleelkana furo like-tana saar si aad ula socoto qaybaha kale ee xiisaha badan. mahadsanidin.